maalintii labaad magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ku sugan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Umar. Mustafa oo shalay galinkii dambe soo gaaray magaalada Gaarisa ayaa sheegay in booqasho shakhsiyadeed uu yimid Gaarisa wuxuuna ku nuuxnuuxsaday inaysan jirin arrimo kale oo uu socday. magaalada Gaarisa dhowr jeer ayaan nimid waaban deganaaba mar waaban deganaaba marka magaalada imaashaheeda ma aha wax siyaasad ku salaysan waa booqasho idinkaa joogta waa magaalo Soomaali ay degan tahay magaalo Soomaaliyeed marka booqashaan u imid si private ah ayaan u imid waan soo salaamay maadaama aan halkan imid aan ahay wasiir federal government of Somalia u shaqeeya wasiir Soomaaliyeed ayaa dadka magaalada degan Soomaaliyeed tay isxilqaameen soo dhaweeyay waana ku mahadsantihiin sharaf ayaad leedahay waxaa laga yaabaa inaad albaab furteen oo wasiirada Soomaaliya dhan ay imaan doonaan soo booqan doonaan dhanka kale shacabkii iyo mas'uuliyiintii la kulmay ayaa ka codsadeen in xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya la isku furo waxayna sidoo kale sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageerayaan midda aan u baahanahay oo aan rabno madaxweynaha inaan ugu gaarsiiso mar kale waa in boodhaga naloo furo boodhaga naloo furo aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay hadda nafteeda Soomaaliyana wax baa ugu dhumaa Kenyana wax badan baa ugu dhumaa in fact dawladda Kenya hadday aqli leedahay boodhaga inay furto dawin baa ugu jirta laakiin waxaan rabaa inaan dhaho wasiiri dawladdaada oo uu farmaajiyo khayruhu hogaaminayaan ayaan annaga taageersana bal waxaan rabaa dadka meesha baadan gacanta kor u taaga gacanta kor u taaga dawladdaasaan taageersanahay jaaliyadda Kenya joogta dawladdaasay taageertay wasiirka na soo salaamaan ku sharfaynaa dawladdaasna waan ka mahad sheegnaa Bashiir Ahmed Daqane Honkebol TV Gaarisa.